الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أيام هذا الكلام إله سبحانه وتعالى ينسوق قارسيي شوقا قروح ذا بدن له الرحمات كي إلهينا ينوصوا كعي نبت قليدي يوناجي أي نكتة منين إنه قارنوا إلهي إنه حسنين ما أنت إنه هالكن قامدي دي كقارني إلهي أم هذا الكلام بعض الله إلهي سكدي وحنو مهنا غيا عد كسر وكسر قيب قادتي وحكو درستي مرتي جلسي مية مقالة أنتي أنوري إني إلهي سبحانه وتعالى إنه أبال كودي أجر كودا وصيو عد كسر سعي الدال كدرستي waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa marka hore xukuumadda Soomaaliland oo aad iyo aad arrinka kan in badan iyo shacbiga reer Soomaaliland iyo waayeelada iyo madax dhaqameedadii inta badan ku hawlanaa ee doonayay inay arrintu halkan soo gaadho aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo wasiirka daaqiliga iyo wasiirada uu madaxweynuhu magacaabay arrintan bariga ee uu gudoomiyaha u yahay wasiirka maaliyaddu aad iyo aad baanu iyagana ugu hambalyeynayna sidii ay arrinka kan mar walba noogala soo xidhayeen ama noogu taageerayeen ama gacanta noogu siinayeen ama ciidamada iyo ay noogu hawlgelinayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan aad iyo aad mahadaan la soo koobi karin iskale maamulka gobolka ugu horeeya barasaabka iyo taliyayaashii ciidamada qaranka ee bilayska iyo militariga iyo ciidamada qaranka ee heeganka ku jiray ee shantaas sanadood ee aan waxba ka dhinayn dayaca iyo dhibaatada badani ka soo gaadhay waxaan odhan karaa ilaahay ha idinka jasaaysiiyo ilaahay intii dan idinka luntay ama qarankaad u socoteen u saciyeyseen ilaahay ha idinka abaalmariyo ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daraanu leenahay aad iyo aad baanu markaa idinku mahadnaqaynaa waxaan si gaar ugu sii mahadnaqaynaa taliyayaashii halkan joogay ee madaxda ahaa ee bilayska iyo militariga balaha ee habeen iyo maalina arrinka kan ku hawlana aad iyo aad baan iyaga u mahadnaqaynaa intaa haddaan ka gudbo waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay hortii ka ballan qaadaynaa inuu dadkaasi maanta laga bilaabo isugu kaaya mid yahay in ciddii inta wanaagsanina isugu kaaya mid tahay inta xunina isugu kaaya mid tahay saasaanu ku soo arrinsannay beelihii shirayay haddaanu nahay in uu qabiil gaara noqdo ninka dhibaatada wadaa in xukuumadda iyo shacbiguna saasay nagula shaqaynayaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa cid kasta ummaddan dhibaato ugu maqanna ilaahay inuu ka qabto ama dalka ha joogto ama dibadda ha joogto waxaa ugu daran dadkan miidiyaha ka dagaalamaya ee dadka xasaradda gelinaya ee ka shaqaynaya waxaan leenahay ummaddii wanaag bay qaadatay wanaag baa idin deeqa ilaahay ka yaaba khayr allah idin siiyo idin ducaynaynaa ee sharkiina kala maqnaada haddaydan waxba tarayn ummadda weliba dadkan debadaha wax ka soo afuufaya waxaan leenahay maanta laga bilaabo beelaha walaalaha iyo reer Soomaaliland ee wanaagga jeclaa ee nala shaqaynayay waxaanu ka codsanaynaa mararka qaarkood waxa dhacday beelaha oo daacad ka ah inay u galayeen dad gacan ku dhiiglayaala oo dhibaato geysanayay in la magan gelinayay waxaanu idinka codsanaynaa ilaahay khayr ha idin siiyo cidna inaanu dhufaysu noqon qof dambiilaahi qof dambiilaahi inaanu cidna dhufaysu noqon go'aanka ummaddu qaadatay inaa kula shaqaysaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ummadda gobolkan la joogtay intii arrinka kan dulqaadka iyo wanaagga ka muujisay ee sidaa odayaashu sheegayeen iga horreeyey waxyeelladu ka soo gaadhay gaarkaa ee aanay waxba ku lahayn dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay ee isxakameeyey aan ka qayb qaadan waxaan leenahay sidaa odayaashu ka dhawaajiyeenna waa la gacan marinayaa arrinkii dhibtu ka soo gaadhay diyaar baanu nahay waanu ka arrinsannay talooyinkaygaanu ku darsannay arrinkan socday wuxuu ahaa inaannu soo gaadhsiino labada beelood dad badan baa dhibaata gaadhay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa beelihii dhibaatadu gaadhay ee hore ee qayb ka noqday axmed faarax iyo jibriil xasan iyo idla biciida oo iyagana wax ka soo gaadheen oo nin ka dhintay beelihii hore may kuwaas waan ku soo socdaa kaadiye qolyaha hore xabad joojintii iyo heshiiskay qaateen siday ugu taagnaayeenna aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wayna qaateen wayna ku ammaanayn waxaan doonaynaa inaan ummadda u sheegno haddaanu nimi beelihii
magaalada nala deganaa ee degmada nala deganaa si gaar aan ula shiray way nala qaateen wayna nagala shaqaynayeen sacyiga u badan iyaga lahaa xanta xumi ha ku hadho halka reer Ceelafku way isku mid way nala qaateen wayna nagala shaqaynayeen aad iyo aadna waan uga mahadnaqaynaa waxaanu si gaar ah ugu sii mahadnaqaynaa beelaha aan dhibtaba iyagu markii horena shaqo ku lahayn ee hadda dhaawaca dambe soo gaadhay ay beesha Sanbuur ka mid tahay ee Arab ka mid yahay oo nin ku dhaawacmay oo uu jiifo waxaanu isla garanay in iyaga loogu horeysiyo arrimoodii la bogsiyo waana ka wada shaqayn doonaa haddii Ilaahay idmo waana nagu sugay waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad baanu iyagana ugu ammaanaynaa ballanqaadka aanu qaadanay xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa inaanay jilcin iyadu annagu ma jilcin doono uma turi doono uma dul qaadan doono ciddii dhibtaa damacda inay isku daydo inay dhaqdhaqaajiso xukuumaddana waxaanu ka codsanaynaa inaanay turaale u samaynin inaanay maanta dulqaadkii ay askartu dul qaadan jirtayna waanu idin fasaxnay ninkii baanaayoo lagu fasax xukuumaddu hadday odhan jirtay beel buu dhufays ka helayaa wallaahi inaanu cidna ka helaynin war waa idin fasaxayeen isaga iyo xukuumadda is helayaan yaa sidii tukihii yaa qaylinaya bay ummadduna sheegi doontaa ummadda reer Ceelafeen waxaanu ka codsanaynaa haweenka iyo dhallinyarada waxaanu ka codsanaynaa dembiilaha dadka ka sasinaya wax ridayey inaad soo sheegtaan isugu mid ahaan baynu u qaban doonaa habeenkii hadduu waa biriisto subaxaynu qaban doonaa haddii Ilaahay idmo ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inoo aqbalo go'aanka aynu qaadanay inuu hirgalo waana inoo hirgeli doonaa shakina ka muujin mayno wuu hirgelayaa wuu soconayaa iraadada bini aadmiga iyo shacabka ayaa iraadada ilaahay ku jirtaa ilaahayna wuu inoo aqbalayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan kaloo jecelahay halka kan fariin inaan uga diro shacbiga reer Somaliland waa maqlayseen xukuumadda uu madaxweynuhu ugu horeeyo tijaarta inta wax haysata inay u gurmadaan dadka aynu walaalaha nahay ee reer beledweyne haddaynan isku dawlad nahay inaynu kala madax bannaanahay waxayna ka dhaxeeya islaamnimo walaaltinimo derisnimo ceeb bayna ku tahay inay Turkiga iyo Gadar u soo gurmadaan inayna doorkii aynu lahaan jiray dadka reer Somaliland ee deeqsinimadii waa ogeeyay waqtigii abaaraha iyo dhibaatada koonfur ka dhacday gurmadkii aynu ka galay sanadii hore hadda waxaad moodaa inaynu ugu dambayno waxaan oran lahaa waa ka qayb qaadanaynaa reer Ceelafeen baa ugu horeynaya gurmadkaana waynu ka qayb qaadanay reer Sanaag baa ugu horeynaya reer Somaliland waxaan leenahay arrinka xiliska saara aafado hadba meel bay joogtaa ilaahay ha ka badbaadiyaan taana leenahay qodobka kale waan ku soo gabagabeynaya hadalkayga wax ka mid ah gobolka inta dhibuhu ka jireen arrinkan xabad joojin baanu soo gaarsiinaynay sida meelaha kale loo wada joogo inay labadan beeloodna ay soo gaaraan xabad joojin hadday soo gaadheen dhammaanteenba intii dhibi gaadhay oo dhan hadda waynu wada arrinsanaynaa xaajada waa wada leenahay hadda laga bilaabo intii hore dee meesha xabaddu ka joogsan weyday halkan ay ahayd maadaama aanu soo gaadhsiinay dadkii war xaajada waynu wada leenahay iyaan waxba la istuhmin waxba lama kala fiqi mayno waynu u fadhiisanaynaa gobolka oo dhan markaynu intan dhammaynana taceeriyaanna waa ku xejin doonaa haddii Ilaahay idmo intii dhibaatadii ka jirtay ilaahayna waxaynu leenahay dhammaanteedba haynoo boogadhayo haynoo bogsiyo arrimaheena waxaan kaloo doonaynaa in halka ka sheegno aanu ammaanaynaa beelaha habar jecel iyo beelihii garxajis ee nagala shaqaynayay nabadda hadda ee jeclaaya u saciyay iyagana waan uga mahadnaqaynaa halka kan si gaara waxaanu kaloo dhiiri gelinaynaa soo dhawaynaynaa shirkii Burco aanu isagana ka qayb qaadan doono anagoo gacmaha is haysanna oo wixii turxaan ahana si guud loo xaliili doono aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu